بسم الله الرحمن الرحيم ومركز شركة نساهر سوفت وير iyo macalin maxamed gurey insha Allah casharkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa sida ugu fudud ee aan u qarin karno local diskyadeena waayo sida badan aynu ogsoonahay local diskyada waa meelaha ugu muhiimsan ee ku qorno xogta sida hadda idinka ba inii muuqata kan waa 390 GB una cas yahay hadana way buuxaa kana waa 332 isna waxba kama dhina way buuxaan marka inta badan waxa laga yaabaa inaan computerka xaafadda oo kale kaga tago ama qof passwordkayga ogaado kadib intuu soo galo inuu xogteeda ama shushubto ama uu daawado ama uu guda galo xog muhiim ah ama uu akhristo marka inaan qarin karo aan marka hiding ku sameyn karo aan dadka ka qarsan karo sida ugu fudud marka eegi doona step-yar ban maraya marka ila soco marka hore computerkaaga waxa soo kicinaysaa sida caanka u taqaaniin file explorer-ka marka ku soo dhufto aan sida uu soo weynaysiisto computer baan imaanaya computer markaan imaado waad aragtaan waxa ay samaysan waa labada local disk iyo taa maskaxda ee muhiimka kadib halkaan imaanaya computer dushiisa right click baan oranaya manage baan ku dhufanaya way manage waa meesha laga maamulayo iyaga oo dhan markuu sida ay soo kaco waxaan ku dhufanayaa disk management markaan ku dhuftay waad aragtaan waxa ay soo kacay maxay waa cd iyo ed iyo ft saddexdaas aan rabaa in labada aan qariyo waayo kan waa maskaxdii oo qarin maayo laakiin waxaan qarinayaa maxay waxaan qarinayaa labada marka hore right click baan oranayaa ila soco hadda waan qarinayaa hadhowna waan tusayaa sida loola soo baxayo kadib waxaan ku dhufanayaa change drive later kadib markaan ku dhufto waxaan oranayaa halkan waa tan f baa inii soo baxday remove baan oranayaa haddaan remove iraahdo hamoodin in fileelkayga waxay goon tirtirmayaan ee halka unbay ka baxaysaa remove baan oranayaa kadibna okay ayaan oranayaa yes markaan iraahdo automatically waa inay baxdaa waad aragtaan hadda halkan ka tirtirantay way tirtirantaa waad aragtaan hadda tan eedi unbay hadhay ft way qarsoonaatay aan ku daro iyadana anoo meesha ku soo noqonaya kadibna right click aan dushiisa iraahdo kadibna aan ku dhufto change drive le kadibna aan ku dhufto aan sii dhahoyna remove markaan iraahdo wuxuu oranayaa miyaad hubtaa in aad saaraysid haa baan oranayaa yes automatically hadda inuu fiirsano waa ay baxday oo hadda computerka xitaa haddaan restart ku sameeyo weligeed imaan mayso qofkuna wuxuu moodaya computerkaygu inay taa keliya aan leeyahay kadibna wuxuu ku baaba'aya ama uu baadhbaadhanaya desktopkayga meel aan waxba iyo ool meelahaas oo aniga markaa faa'iidaba igu jirinba laakiin intii ugu muhiimsanayd waan qarsada haddana haddaan kusoo noqdo oo aan imaado isla wadadii baan maraya markaan doonaya aan ka qaadana haddaan taa iska xidhay right click baan oranayaa manage baan kusoo dhufanayaa isla wadadii ayaan maraya kadibna waxaan oranayaa disk management markaan ku dhufto waa kuwan xarfo male laakiin kan c baa ku qoran kuwan xog kuma qorra kan u baahanay kan doono hana ahaadaba right click dushiisa oranayaa kadibna change-gii baan tegayaa isla bartii baan tegayaa kadib halkan waxaan oranayaa add kadibna wuxuu doonayaa ma bedelaysaa xarafkan e ma ka bedelaysaa warmada eedeeda igu daa baan oranaya kadibna okay baan oranayaa waxba ka bedelin automatically waad aragtaan uu soo gala hay'ata kalena aan keeno ifan haddaan taa keliya horta eegno waa tan way timi waad aragtaan baan filayaa haddaan ta kalena ku noqono aan right click iraahdo isla intuun baan oranayaa kadibna add baan oranayaa kadibna okay ayaan oranayaa automatically iyana waa soo gashay aynu haddaynu ku noqono aynu eegno waad la socotaa baan u maananayaa in labadiiba haddana ay soo noqdeen hadhow markaan computerka igu yimi anaa soo ceshan karaya in la soco mar walba shirkadda sahar software waxay diyaar kuula tahay in ay adeegyada computerka ka haqabtirto meel kasta caalamka ka joogtaan taasoo mar walba casharada taxanaha inii soo gelisa website-ka shirkadu leedahay ee www.saharsoftware.com ama haddii aad markaa wax fariina aad ku qabsatay waxaad igu soo diri karaysaa facebookiga aan gaarka u leeyahay ee halkan shaashada hadda kaaga muuqda sidoo kalena la soco maalinta ka dambeysa waxaa maalin walba la soo geliyaa oo maalin walba dad baa u qaabilsan inay kusoo guraan casharada website-ka fadlan mar walba website-ka ka daawo kuwan iyo kuwo kaloo kasii muhiimsan oo aad adiga ku anfici doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu